markii ay gaariga ka degeen ayuu ka daba tagaa wuxuu isku dayi doonaa inuu ka qaato hantida ay ka qaateen laakiin qoriga ay afka ka gelin doonaan eeg wuxuu isku dayaa inuu daba socdo iyagana way ku soo celinayaan qoriga ayay iskaga reebayaan inkastoo aysan rasaas ridin way qalqal gelinayaan dantan waxay ku kalifi doontaa hantidiisa oo u jeediyo inuu waxba ka qaban waayo Soomaalidu waxay ku maamahdaa asxaan hafalin shar kuma timaade marka hore wiilka dhalinyarada ee la dhacay isaga ayaa sameeyay asxaan laakiin wuxuu ka faa'iiday bal eeg maalin wanaagsan marka hore intaan gudaha u sii galin waxaan ka codsanaa tani waa mid adiga kugu dhici karto qof kamidana ehelkaada ku dhici karto maalintan waxaad doonaysaa in lagu hadlo halkan la soo istaago si aad cadaalad u heshid xaqaadana aad u heshid maanta marka adiga ka qayb qaado muuqaalkan qabo la sii wadaag saaxiibadaada kale baabuurkan aad u jeedaan gudaha waxa u saaran laba askari oo booliiska Soomaaliya waliba booliiska gobolka labadan askari mid kamida ayaa kamida staafka qaaska taliyaha booliiska gobolka Banaadir Macalin Mahdi labadan nin aad u jeedaan mid kamida ayaa staafkiisa gaarka ah kaasi waxa lagu magacaabaa waa nin la yaqaan kaaga daran Cabdullaahi ayaa lagu magacaabaa Cabdullaahi Dheere ama Cabdullaahi Dayman labadaas naanis ayuu leeyahay ninka kale waxa lagu magacaabaa sac marka waxa loogu dari doonaa waxaan afka u fiicneen ansha ahaan oo aan halkan ka sheegi karin sac sida ayaa la dhahaa laakiin mar doonaya in waxa afkayga ka sheego halkan dadka igu xiran waxa ay iga maqlaan labadan marka ninka Cabdullaahi Dheere la dhahaa ama Cabdullaahi Dayman la dhahaa isaga waa staafka gaarka taliyaha booliiska gobolka halkan ayuu u tagay kalluumaysi kaligii ma ahan ninka sac hebelo loogu daro waa gangster labaduba waa booliiska gobolka wiilkan dhalinyarada ayaa ka soo qaaday garas baale wuxuu ku dhahayn waxaan ka codsanayna in hore noo sii qaadid okay ayuu yiri uu soo qaaday waa mid kamida dhalinyarada ka xeeso gaadiidka bajaajka gaadiidka loo yaqaano dhaweeyaha oo soo qaaday wuu caawiyay lacag muusan weydiinin markii dhaxla soo marayo waxa jirta laamiga meel yar loogu dagaayo xaafadaha la soo dhaxmaray hadana la soo fuulay wuxuu ku yiri halkan ayaa raba inaan galo dabadeedna xagga aan ka soo fuulo okay ayay dhahin oo si raacin markii la maray wadadan ayuu ku dhahin noo jooji halkan aan rabnaa inaan kaga degno okay markii dagaayeen halkaas qori baadkiisa ugu dhufteen mobilkiisa iyo boorso yar oo lacag iyo ugu jirtay ka qaateen oo ka daba qeylay markaa u jeedin qoriga iskaga reebeen hada kuwa bacriminta IVF waxay lamaanaha u fududeynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalayo qalab casri ah isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho Taleex wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo oogada ee ariga xada waa la soo qabtay staafka Macalin Mahdi ma la soo qabto waa qaybta ugu horeysa ee aan ka doonayna in cadaalad dalkan uu ka dhaco labadan mid kamida waa raga gaarka specialka u ah taliyaha booliiska gobolka Banaadir hada xal waxaan arkaynay ragii ariga xaday waa la soo qabtay hadii marka ninkan la soo qaban waayo micnaheeda tuuga sharciyeysan jiro iyaga gaar loogu ogol yahay inay wax dhacaan ragaas haday kaamira qabato iyo hadayna qabaninbo lama qaban doono sheekada noocaas ay noqon doontaa hadii la soo qabto ragan booliiska soo bandhigo taasi waxay noqonaysaa in laga wada sameeyaa marka si loo eego magaalada Muqdisho hadii wadada adoo maraya qofka ugu horeeya caawi ku dhaho waxay maraysaa hadaa caawisid oo dhibaatadan kala kulantid ila u qabsatay inaysan lahayn taxadar nafsadaada ilaasho adiga gaar ku tahay wiilkan dhalinyarada ee la dhacay ee hadana caawiyay wuxuu u baahan yahay in loo hadlo cadaaladna uu helo muuqaalka qabo saaxiibada la sii wadaag mahadsanideen bismillaahi raxmaani raxiim aqyaarey waxaan maanta joogaa Mogadisho Specialist Hospital waxaan u imid inaan idinku bishaareeyo in 10 Oktoobar bisha soo socoto inay imaanayaan dhaqaatiirtii ajaanibta ee siiba kuwii Hindiga ahaa ee ku dheereeyay qaliimada iyo farsamada iyo hagaajinta jilbaha iyo sinaha Mogadisho Specialist Hospital waxa uu hore ugu guuleystay ilaa iyo 25 kiis oo aad ka heli kartaan magaalada Muqdisho ayagoo lagu hoodo ku socdo haddaba isdiiwaangelintu waa ay socotaa ka soo gaara insha Allah waad ku caafimaad doontaan